وفدهم soo gaamiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyagoo ka sadiiran lahan ka dhawaayay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool maamulka gobolka kan degmada saraakiil ciidanka odayaal dhalinyaro iyo awlaad iyo ka dhawaaqay hal ku dhigay iyo kumitaayeen ciidanka xooga dalka qaybta 6aad guutada 9aad iyo salaan sharaf ugu qaaday madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen garoonka diyaarado degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool safarku soo gaamiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay qayb ku hayay wasiirada wasaaradda caafimaadka maaliyadda amniga beeyada xildhibaano ku tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed taliyaalka ciidanka xooga dalka qaybta 6aad iyo taliyaha guud ee ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed hadawaayo iyo ismarxabeen qureed warbaahinta may soo wada jireen la hadalay gudoomiyaha gobolka Bakool iyo kan degmada Xudur mayniyo sheegana antiyo ka faraxsan intii geekus hadeer wafdu soo gaamiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen dhammaan madaxweynaha wasiirada xildhibaanada agaasimiya warasgaarsinta saraakiisha ciidamada dhamaantiyo way ka salaamanaa salaanta muslimka salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib ciidan ka faraxsanna madaxweynaha dhawaw magaalada gobolka Bakool ka dhawaadi wafdiga ciidana maana lakiin ka weynay alxamdulillah shacabkii dhammaan ciidamada iyo mas'uuliyiinta dhamaantiyo soo dhaweynta ayaa ku gordaasan maana sablaar la siin diyaar garoowi barnaamijyadaas runtii waqtidan inta safarka ka jartiiba shacabka reer Xudur dhamaantiyo siin diyaar garooween alxamdulillah هذول نبت هذه وفتقوا نبت كويتن حسن دوان إن شاء الله وبرهجينا أني ملاويني دلكن ولن تري سمت به إني لا يكي ولا لا يكي كتوغن الحمد لله إيدي أنا كفرها سجنا دوان إيدي أنا سلام بعد جماعة وين هدواو ميلاد جي كويت حضروا قبل كبكولو إيدا لكن سجاي والبدن أرد بدن أو جرا ونكين كباهنا إننا نحلي يكين سجاني والبدن هم إلى رأي أتكأتسني أتكأرن هدي هذا هرجلي إذا كم حسنت أنا واركم كدار داو دوغي هذا جرا madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen yaa mahadnaqay shacabka degmada Xudur iyo mas'uuliyiinta iyo hadhawaayo ka diiranayeen suubiyeen may soo sheegay intii maalmo uu sarooga degmada Xudur uu soo qabado doona baahiyo ku jira degmada sidaas oo kale may soo dhiirgeliyay ciidanka xooga dalka iyo handaraawishta Koonfur Galbeed guuliyo ku diiran dagaalkii ku dhanka hay maleeshiyada al-shabaab ee ku dhiiqay ku tirsan gobolka Bakool gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Xudur maamulka gobolka Bakool maamulka degmada odayaalka dhaqanka ururada bulshada ciidamada saraakiisha ciidamada booliiska saxaafadda wafdi balaarnaa oo ila jiro hogaaminaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد السلام ولي ما نجي دتك قبل كبكول خاصة دجمة حضر أو يا قليل كم تصفي لهنين دواي إيدي ما سنتين أنتي شرفني تجيك ولكوين دجمة حضر قبل كبكول ولا نون كوين ولا وها إنه نوجان دجاندهم قبل كبكول خاصة دجمة حضر فولو دولة أو قدرة إنه دردر جلينا دير جلينا سيدا الشقة كدرة تونا إنه أجانا ولي لجري وزيردي أو دولة كونفور قلبات باهيالك حضر طال إنه كجوابنا أو ولا اللي ينباهني إنه قضنا يان قويني وهذا بالشدة لشرنا معمول كل شرنا إذا ماذا أرجنا كل هيدا أصلاً تدك مسؤوليته
haytiya wadni yaa isla jarna waana wala inkoyna in walaas baahi dhan kulli wal ku qaban insha Allah si goona ay si guud is arga doona waan eedin amaanay oo sharaf amaan mudan ciidanka degmada Xudur gaar ahaan gobolka Bakool oo howlaha ciidan difaacsho amnisho ka dagaalada iyo galeen ka amaanan sharaf kale walaana inkoynina taasa koobka inuu ciidankaas baahidii oo daboolna inuu dhiirigelino howlgallada iyo wadaana kama hadsiin walina jaray taliyaalka ciidamada taliyihii qaybta 6aad taliyihii daraawiishta iyo saraakiil kale ku dareertay hay'adda nabad sugidda yani la jarta wal fadaanay inuu ciidamaha dib u habeyn ka suubin dhismo iyo tirakoob ka suubin hoo ilaahay walaasna aan koyni walbadan iyo dareerkan ka saabsanay oo adeegyada bulshada arrimaha bulshada caafimaadka walbarashada ciidamada dhamaystirka howlihii kale ee dhimanay inuu dhamaystirno socdaalkana saasahay wala mahadnagay dadkii hana dhawaay shacabka iyo maamulka oo degmada Xudur eediyada mahadsiin gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada mahadsiin saraakiisha ciidamadana mahadsiin insha Allah waan isla warsado doono talada doono walaysi gooni kama naga dadkii degmooyinkaas ku qoy sida Tieglow iyo Rabdhuure oo degmada Xudur roogan insha Allah wali rajeeyana in iyona deegaansho ka nagadaan oo degmooyin soo diblin xoray dadaal shay shaqadii wadna wala uu koynaa kumidata insha Allah waan wal guuleysado doono eediyada mahadsantiin mudooyinkii dambeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wadi safaro ku socday degmooyinka Koonfur Galbeed kaasoo uu ku koor galay walku ogaanshaha baahiyo ku jira degmooyinka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo geedka wuxuu soo galayo hadeeri isagoo uu soo sheegay intii safarada shaqo ee isku soo yimid degmada Xudur isoo ku qabro doona baahiyo haysada dadka ku nool degmada Xudur Faysal Maxamed Isaaq degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool